Sacuudiga oo bilaabay baadigoobka bisha Shawaal iyadoo maanta Ramadaan ay tahay 29 sidoo kalena Shacbaan uu ku soo idlaaday 29 iyo culimada Soomaaliyeed oo ka carooday baadigoobka Sacuudiga uu bilaabay xilli Masar ee diyaarisay goobihii lagu dukan lahaa Ciidul Fidriga maxay ka dhigan tahay in hadda la baadigoobo bisha Shawaal iyadoo Ramadaan 29 uu marayo muuqaalkan ayaan idinku wadaagi doonaa balse marka hore muuqaalka laag saar sina sheer garay nuguna soo biir mahadsanid Sacuudiga ayaa bilaabay diyaar garowga iyo baadigoobka bisha Shawaal iyadoo qalabkii lagu baadigoobi lahaa bisha lagu diyaariyay goobihii laga baadigoobi lahaa bisha Shawaal iyadoo maanta Ramadaan uu marayo 29 maalmood dowladda Sacuudiga ayaa boggeeda rasmiga waxa ay ku shaacisay in maanta ay bilaabayaan raadinta bisha Shawaal iyadoo maanta Ramadaan uu marayo 29 maalmooda dhanka kale culimada Soomaaliyeed ayaa ka carooday baadigoobka iyo u diyaar garowga ciida iyadoo maanta Ramadaan uu marayo 29 culimada ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in Sacuudiga aysan ahayn inuu hadda bilaabo raadinta iyo u diyaar garowga bisha Shawaal isla markaana muslimiinta aan qalqal lagu abuurin sida ay sheegeen culimada Soomaaliyeed culimada ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladda Sacuudiga inay joojiso baadigoobka iyo diyaar garowga bisha Shawaal isla markaana ay tahay in la dhameystiro 30 Ramadaan maalinta birita ayaa inta badan muslimiinta waxa ay ku kala aragti duwnaadeen in ay tahay ciid in sidoo kale la dhameystirayo 30 Ramadaan maalinimada Axadda ay birito Ramadaan ayaa maanta maraya 29 maalmood iyadoo muslimiinta intooda badan ay hal mar wada soomeen bishan Sacuudiga ayaana mar kale haatan bilaabay u diyaar garowga iyo baadigoobka bisha Shawaal waxaana la filayaa in galabka markuu gobolka dhaco Sacuudiga oo baadigoobo bilashada bisha Shawaal iyadoo Ramadaan ay tahay 29 iyadoona sidoo kale dowladda Sacuudiga tiro dhowr jeer ah sidaan oo kale u bilowday baadigoobka iyo diyaar garowga bilashada bisha Shawaal ama Ciidul Fidriga iyadoona ay ku dhawaaqday in marar badan la dhameystirayo 30 Ramadaan si kastaba culimada Soomaaliyeed ayaa ka carooday u diyaar garowga iyo baadigoobka ay bilaabeen Sacuudiga ee ku aadan Ciidul Fidriga